xasan sheekh 15 bisha May wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore maxaa noo qorshaysan maxaa waxaan sheegi lahaa ninkaas waxaad moodaa inuu qalin boobay oo sheegay dadka Soomaaliyeed laba qodob aan islahay burburka kadib way u badbaaday labada qodob waxaa weeye diinta iyo dastuurkaas yare xilligii madaxweyne Sheekh Shariif la ansixiyay oo 143 qodob iyo 15 cutub ka kooban iyo laba jadwal hadda ay ku socoto falaadka uu sheegay walaalkay xasan ciyaarka diintaasaan lahay way u badbaad diintii waad aragteen madaxweyne xasan sheekh iyadoo bil ramadaan la joogo ayaa dadkii shacabka ahaa la barakacinayaa maalin walba 5 qof 6 qof magaalada xamar ku dhimata dadka waa naga roostay sanadkan si fiican ay noogu socotaa marka madaxweyne xasan sheekh dhaawac weyn ayuu gaarsiiyey culumadii Soomaaliyeedna way u aamuseen ma garanayo Sheekh Shariif baa ka hadla oo asna madaxweynaha marmar ka hadla inta kale culumadii shirar jiraa'ideed fadwood soo saaraan madaxweyne xasan sheekh ay ku diidaan wuxuu samaynayo heede meeshii ay ka baxday wax ku dhacay ma la yaqaan ilaa iyo hadda dastuurkan 55 xildhibaan oo aniga ka mid ahay ayaa banaanka laga soo dhigay kadib markii ay u doodeen waxaan wax sax ma wax yaraan waxaan rabaa inaan xasuustayda dib aan u celiyo nin xildhibaan ah oo saaxiib aan nahay oo nin oday ah ayaa waxaa ka mid noqday dad odayaal ah oo madaxweyne xasan sheekh uu casuumay waa markii saddexda dowlad goboleed heshiiska yararka ay u soo qoreenoo madaxweynaha shacabka dooranay madaxweyne ku-xigeenka shacabka dooranay la yiri waxaan weydiiyey waran maanta xalay dadkii lala kulmay kamid ah dastuurkii 4 October wax laga bedelayaa wuxuu yiri niyow madaxweynaha wuxuu dhahay waa qaldamay muxuu ahay madaxweyne ku-xigeen in lagu soo daramay oo la dooranayo waayo bari uu garow iskala fadhiisan doonaa hadduu doono markiin iskhilaafna waa baxaya ama garow tagaa ama kismaayo tagaa madaxweyne ku-xigeenka cidowsii waad aragteen madaxweynihiina asaga ku fadhiya marka wuxuu ka fikiraya madaxweynaha waxaa waaye kala qaybin ummadda Soomaaliyeed waaye ma aha dastuur jacayl ma dastuur jacayl hadduu yahay garow geyn lahaa Puntland uu soo tashan lahaa Jubbaland uu soo tashan lahaa waa kuwan madaxweynayaashoodii fadhiino oo lama imaanay taagii caraba halkan fadhiyo oo guddiga ka mid ah wuxuu leeyahay ma tigin mana ka warhayno warbixinka ma loo geyn marka dastuurkan baase hadda la wato waa mid foojir ah ee madaxweyne xasan sheekh ku ekaan doono yaana dastuurka yare hadda 143 qodob ay ku qoran tahay yaa nagala xadina kaas aan haysan ninkii haayo buugaas ha ku mitido ha haysto kaas dastuurka saxda ee ummadda Soomaaliyeed ay haysataa kaas yaa nagala xadin hadda ka hor gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaankii hore Cabdiweli oo dastuurkii 50 milyan lagu soo bixiyay waa la xaday anigu rumaan moodahay muxuu ahay dastuurkii kii aan haystiyaan ku mitida kii maalintii 825 qodob ay ku qoreed ayaan hayaa baagaraaftan dii laga bedelo waa arkaya anigu dadkan waa amaanadaas oo haynaya insha Allah midda muhiimka waxa weeye xasan sheekh waa u bareeray in dadkana uu barakaciyo dhulkii dawladda asgato sabar loogada lahaa ayaa loo soo dhigtay dad waxaan arkay masaakiina gurigeyga aabahay ku dhashay anigana 40 jiraan ahay guriga saaka liiga burburi lahaan arkay waa inaan dadkaas sidan ku badbaadin karno aan ku badbaadinaa runtii wax laga murugooda waaye in dad shacab ah
guryihii iiga ay lahaayeen kii dowladda markii lagu soo kala baxay in la dhaco wax muxuu ahay loo gagsan kara ma waxaa la rabaa madasha mustaqbalka madaxweyne xasan sheekh waa idiin soo diiday odayaashii shalay ku noqday madaxweynaheen hore ka mid ka ahay waa soo diiday xasan sheekh 15 bisha May wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore maxaa noo qorshaysan maxaa qorshe ah oo nooga degsan waddankeena maanta wuxuu ku sugan yahay waddan hal qof oo u haayo xeragaas haddii uu xeragaas go'o burburkiyaan ku noqonaynaa dalka maanta waxaa badbaadin kara annaga oo yihiin oo aan u diyaar garowno bannaanka aan u soo baxno kii dhul laga dhacay kii dastuur uu hiilinaayo inaan bannaankaa u soo baxno hana laaya annagani asagana waxaa waaye maalintiisa ayaa la jiidi doonaa miyaadna arag dowladaha oo muxuu ahaay hore u maray mudaharaadka ka dhaca kuwaasaad ku xaquuq tihiin xaquuqdiinni idinka hagaasyarina u soo baxa bannaanka aan garbaha isqabsanno hanala laayo wixii soo oo nooga fakada xarakaha ku noolaadaan tan ugu muhiimsan waa taas aad u mahadsantihiin mikrofonka waa la garab taagan yahay hore u yiri aadna u mahadsantihiin salaamu calaykum shirkii ugu dambeeyey dowladdu waxay noo sheegtay in 15 abriil madaxda dowlad goboleedyada ay bannaanka imaanayaan ay doorasho dhacayso waa weydiinay sidee ku dhacaysaa waa 2 bilood ka yaraada harti bil iyo xogaan madaxweyne ma sheegi kartaa madaxweynuhu way dhegaysanayaan wuu naga meermeeraystay laakiin saaxiibadiisa hadleen waxay dhaheen 15 dabka ayaan ka soo dejinaynaa digsigaas karkaraya oo ah madaxweynaha maamul goboleedka waxaan isticmaalaynaa oo ay saxiixeen qof iyo cod waxay kaloo saxiixeen in ay ka tirsan yihiin xisbiga JSB sidaa darteed way noo fududahay inaan doorashadaas qof iyo codka qabanno sida ugu dhaqsiyaha badan ee ku soo baxaan 15 May waxaa bannaanka soo istaagaya madaxweyne dowlad goboleed oo qof iyo cod ku yimid waa isweydiinay madaxweyne dad waaweynaan nahay odayaalaan nahay حتى حمرتي هذه ستة وتنسي هذه والدقلة صاحب والدقلة يحكم ياله مدحينه وكوكلهم يصير ورشة قف عض ها ويدقوا دعوة الكلية ميال ما عندنا الله ده هالشيء يتوقع أبريل مدحوين ياشر الولاد كسر بحير مدحوين كانوا يرين عرض تاس معقولنا معا هذه كان يا بير نقولش لكن حتى هذا اللي يقول شيء مدحوين gabagabadii horta waa soomanahay markaad wax badan inaan ku fogaado soonka kadib aan ka dhiganaynaa ku ganacsantiin sooma madaxweyne iyo shacabka soomaaliya waxaan leenahay annaga madasha ah kama daarayno mar kasta inaan u caqli celino madaxweyne waxaan leenahay halka aad ku wada dalka ka daay madaxweyne ummadda Soomaaliyeed ee maanta dhibaataysan in yar ayaa wax cuni karta oo nolol maalmeedka haysato inta kale waa dhibaataysan yihiin madaxweyne ummadda u tur daruufta hoos taalla shacabka Soomaaliyeed dhibaataysanna hoos u eeg madaxweyne maanta maaha maalintii xoogga iyo xoolo lagu bixin jiray boobka aan shaqaynayn ee kursiga lagu raadinayo madaxweyne indhahaga fur madaxweyne maanta waa maalintii ummadda midnimada u horseedi lahayd oo aad ka shaqayn lahayd waxaan leeyahay dadka tabaalaysan madaxweynuhu weli ka hadlaya maana arkin madaxweyne soo jeeso shacabkaaga soo jeeso abaaro baan ayaa jira marka waxaan leeyahay waa Ramadaan kariim dhammaantiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la maqlayay erey halis ah kaasoo ah dastuurka waa la soo afjarayaa ereyga afjar waa erebixin xilligii hoggaaminka kooxeedyada xilli
sharci la'aanta lagu xukumayey rasaasta lagu go'aaminayay khilaafaadka su-aashu waxay tahay ma doonaynaa inaan ku noqonno xilliga aan ognahay natiijooyinkii ka dhashay jawaabtu waa maya soomaaliya waxay soo martay colaad burbur macluul qaxooti barakac argagixiso faragelin shisheeye iyo dowlado ku meel gaara sanadihii ugu dambeeyey soo kabasho ayaa muuqatay inkasta oo in badan oo caqabadihii ka mid ahaa weli taagan yihiin qaarkoodna soo noqnoqdaan waxaase la isku raacsan yahay hal qodob oo ah in dowlad la'aan aan la jiri karin qaranka oo dad dhul dhaqan iyo diin ah uusan taagnaa karin ama badbaadisa laakiin waxaa weli lagu muransan yahay waxa ugu cida soo kabashada saldhigu ah sidee loo heshiisiin karaa bulsho dirirtay sidee loo dhisayaa kalsooni burburtay inaan si sharci kala dambeyn amni xasilooni midnimo iyo wadajir loo helo sidee looga baxayaa colaadda abaarta looga guulaysan karaa argagixisada iyo faragelinta shisheeye looga faa'iidaysan karaa kheyraadka dabiiciga ah iyo bardhaceedkeena juqraafi siyaasadeed ee istiraatiijiga ah dadkeenna oo isir diin dhaqan wadaag ah jawaabtu waa hal dowlad loo dhan yahay dastuurkuna gacmaha hayo oo marin cariiri ah laga soo dhex saaray marinka federaalka Soomaaliya sida dastuurka jamhuuriyadda federaalku uu sheegay waxa lagu xadgudbay muwaadiniin Soomaaliyeed oo la yiri lama tasqiidinayo shahaado ay Soomaaliland ku qoran tahay marka halka waxay ku tusaysaa dastuur inaanu meesha ka jirin oo jangal lowgii uu sheegay Xasan Sheekh isaga laftirkiisu ku dhaqmay dastuurka waxay Soomaalidu tidhaahdaa hal xaaraan irig xalaal ma dhasho dastuurku markii koobaad qaab sharci darraba ku socdaa baarlamaan waqtigiisu dhamaaday oo laba bilood ka harsan yihiin marka labaad waxa lagu bixiyaa hantida danta guud ee dadka ka dhaxaysa iyo hantidii dadku lahayd oo lagu daray oo la wada iibinayo wixii dhul dalku lahaa wixii wasaarada lahaa garoon xarumihii ciidamada ay ku shaqaynayeen ay lahaayeen oo kulli intooda badan hoos baa loo iibiyo media lagagama hadlo dastuurka anigu waxaan ka shakiyey markuu Xasan Sheekh yidhi ha loo bedelo dhowr mas-uul oo ahaan jira mas-uuliyiintii dalka soo maray oo madasha ka soo goosatay dastuurka shakhsina looma bedeli karo ashkhaasna looma bedeli karo dastuurku wuxuu u yaalaa ummadda Soomaaliyeed dalku waa parliamentarian dadka ay soo doorteen labada golo ka mid ah buu u yaalaa waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto hadalkaygan dadka iyo dalka Soomaaliyeed abaar daran bay ku jiraan oo soo noqnoqotay maalmahan u dambaysa waxaan magaalada Muqdisho ku arkaa jidadkeeda iyadoo lagu sameynayo afur wadareed dadkii haystay baa wax loogu sii daraya dad baahan baa jira dad biyo la'aan u dhimanayaa jira dad xoolihii ka eesheen baa jira oo ka dhammaadeen walaalayaalow istuska iyo intaynu isku dayno show ofka dadka masaakiinta waxaynu gelinayno dadka madaxda in jidadka ku siinayno aynu u naxariisano madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay dalkan iyo dadkan baa lagu doorto lagu dhaariyay dastuurka xaq u maleeyay guud ku bixisid dadka masaakiinta u danqo ka hadal dowladda iyo xukuumadda ha ka shaqeeyaan dastuurkuna waxa 14 cutub 6 cutub baa 5 days laga shaqeeyay konton iyo kow xildhibaan baa banaanka la dhigay oo matalaad ku leh aniga iyo ugaas mursal xildhibaano aan ka mid ahayn oo xildhibaanada mucaaradka dastuurka ka soo horjeeday ee dirsadeen oo erga ahaabaan ku jirin waxaan maalintii dambe isku aragnay warqadii ganaax war maxaa naloo ganaaxay baan nidhi waxay idhahdeen nabadda ma rabno nabadday ka shaqaynayeen inay noo soo noqdaanba ma rabno qoladaas waa mahadsantihiin soomaaliya markiiba waxaan leenahay baarlamaankeeda iyo golaheeda iyo waxeedii doorasho sidaas loo maamulayo
ما رالي كنا وكرنا أو في سكرنا أو نيكرنا رالي كنا هاي مدحوينا حسن الشيخ وإن شاء الله نقول نصيحة سيف عنا النصر دوي سيف عنا أول نقاش سيف عنا وضع هذا اللي نقاش حمان كما شيء إنه لكن وحقوقات كيسنا دور شقف في عضة أو أدون كقف أي قلب جيس قصور سنتها أي سنتين أو أنا أستقع بس قلب هذا مرة حاربنا dadka Soomaaliyeed bay joogaan waxa uu yeereena dastuurka beenta ah oo la qasaayo oo ay madow asax kaliya uu leeyahay kaco mana daba kaco mowqifkaasaan ilaahay arrinta doorashada waxaan rabnaa in loo sheego madaxweyne wadadaani wado kaa saaraysa waayo reerkan laakiin reer kale ku geymayso soomaaliya waxay u horseedi kartaa oo ay keeni kartaa ilaahay nooma keena subxaana watacaala in magaalada muqdisho 2 madaxweyne 3 madaxweyne ay yeelatay keeni kartaa haddii nin walba u yidhaahdo aniga waxaan rabaa suubsana magaaladan waa soo martay xoog iyo anaa rabo way soo martay 10 sanaan joognay waa isku soco weynay warloodyaa noo batay jidkaa kala xirmay laakiin wax Soomaali raali isku tahay markaas ama ku soo subtan cabto ama aan gaad ku soo subtan ama meel ku soo subtan annaga u jeedno marka madaxweyne xasan sheekh wuxuu rabaa isagoo gaarigiis wato inuu soo qaato uu sii watuu rabaa marka dastuur saasi uga sameeya dastuur waa heshiis bulshadeed marka arrinta meesha naga qaldanteen waxaan qabaa mar horaan soo daahanay in shirar noocaana la qabto taasna shakhsiyan anay bay soo qusaysay oo ah markii ugu horeysay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay dastuurku heshiis ay bilowdeen waxay ahayd dhacdadii 2022 December bay dhow ka dhacday waxaa la isku yeesay waxay ahayd dastuurkaasi oo federal ah oo state-ka ah wuxuu dhigayay 4 sano in mar la isdoorto madaxweyne lafta galeen waqtigiisa December 2022 ku ekaa ani waxaan ahaa musharax waxaan isku dayay si dimuqraadiyad ku jirto inaan guri ijaarto oo aan campaign bilaabo waa la socotay wixii ka dhacay meeshaasi dagaal ka dhacay guriga la weeraray waa la burburiyay dadkii ku jiray shacabka la laayay waxaa noo yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe annaga waxaan sugaynay in dadka nabad la dhex dhigo dib u heshiisiin la sameeyo wax heshiis lagu yahay inay meesha ka soo baxaan ayaa rabnay annagoo dib u heshiisiin sugaynaa inta loo yeeraa waxaa la yidhi waxaa extension loo sameeyey madaxweyne lafta gale waxaa lagu sababeeyey in shabaab la dagaalayo oo phase 2 la galayo marka gobolada dhex laga soo noqdo oo koonfur galbeed shabaab laga xoreynayo waa hal oo sababta kuwataas sababta labaadna waxaa la yidhi waxaa la mideynaa doorashooyinka oo maamul goboleedyada labadiiba waxay noqdeen laba shay aan ku qanacnay oo macquul ah hadda waxaan joognaa 2026 hal maalin xabad lagama ridin oo shabaab lagula dagaalamayo koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh waqti waa ka dhamaaday labo doorashada liid waa la mideeyna iska daa in doorasho la mideeyo hadda waxaa la leeyahay doorashooyinka oo maamul goboleedyada siyaabo kala gedisan u kala galaya inta waxaana la fadhiyay madaxweyne deni oo sharcigiisa iyo dastuurkiisa lagu soo doortay maalin dhaweyd waxaana la joogay madaxweyne axmed madoobe sidoo oo kale hadda waa 3 maamul goboleed oo la leeyahay doorasho one person one vote hal qof hal cod ah arinta hal qof hal cod ah waxaan idinka hayaa practical example bishan 4teeda iyo 5teeda bayda waxaa ka dhacay dagaalka markuu dhacay guddoomiyaha guddiga doorashada xasan sheekh wuxuu joogay magaalada baydhabo bakeeri isagoo wax ku cayaayay waxaa ku dhacay sharab nalka oo dagaalkii socday ayaa ku dhacay wuu jooga bakeeri
maalintii shanaad oo dagaalkii subax wuxuu dhamaaday duhurkii galabtii dhaawac isagaa soo qaada xamar keenay wax usbuuc ka yar wuxuu taagnay idaacadaha wuxuu dhahay waxaan daawacayaa kaararkii codbixiyaashii magaalada baydhabo marka ani waa fikiray maadaama aniga xisbi samaystay oo layidhi jabhadaa tahay oo magaalada baydhabo lii diiday inaan tartamo iyo inaan olay lii diiday waxaan is dhahay doorashadan aan Australian ka yimid oo waa aqaan doorashadan bes one vote waxay tahay marka waxaan ahay doorashadan waa doorasho oo desk based wax la yiraahdo oo laptop ah sida ma aragtay musharaxa madaxweyne hadda uu tilmaamay waa wax lagu go'aaminayo hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne xasan sheekh in already madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed already ay u diyaarsan yihiin cabdiraxiin in loo sheegaa laga yaabaa anagana waxaan sugeynaa inaan musharax noqono oon tartamaan sugeynaa marka waxaan kusoo gabeynaa warkayga haddii la rabo in la difaaco dastuur ama dasaatiir kuwa waxaa ka ah in marka ugu horeyso oo la arko in xuquuq lagu tumanayo in laga hadlo nin professor oo jaamacad ka dhiga oo magaalada maadada luga ama sharciga dhigaya ayaa maalintii ugu horeysay oo casharku bixinaya ardaydiisa gabar meel fadhiyo intuu yiri iga baxay fasalka gabadhii oo yaaban maxaa halay dhahday ma hadli kartid fasalka iga baxay iyadoo yaaban ardaydan yaaban oo casharka bilaabay markuu yiri dastuur maxaa loo sameeyaa qofka loo aan isdilo anigu naftii waan nacay wadamada qaar baa u sharciyay qofka hadduu isdilaya in loo fududeeyo irbad lagu dhufto marka hadda waxa madaxweynuhu ka shaqeynaya ee dowladdiisu waxa weeye sharciga iyo caqliga anigu aan isdilo waxaan leenahay marka madaxweyne adigu gaar isu dilo laakiin annaga hana dilin oo dadka Soomaaliya ha dilin ilaan haddii rabitaanka la aado qofku caqliga ka tago sharcigana ka tago waxaa YouTube-ka aan ku arkay nin hindiyo qaawan oo futada calal yar ugu xiran yahay oo dadku caabudaan oo ka daba ordayaan cagaha intay ka dhaqaan bay cagihiisa biyihiisa cabayaan markaasay ka daba yaacayaan waxay ka daba leeyihiin shaalo say shaalo uga daba leeyihiin buulo meel ku xaraysan inta u gala sac kaadii afka la galaya marka madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda xamse magacyaalkoodaga uu yahay baarlamaanka magaciisii oo aadan madoobe ay hadda ka daba leeyihiin isagoo sharcigiina ka tegay caqligiina ka tegay oo jacayl ku socda shaalo ka daba leeyihiin waxaan leenahay dee meeshii ninkaasi digaha u socday meel ka daran baad aad socotaan oo naar ah ee caqliga ku soo noqda oo sharciga ku soo noqda waxaa ka shaqeynaysaa sharci iyo caqli midna waafaqsanee dowladda sida la sheegay waqtigeeda waxa u haray baarlamaankana 45 casho madaxweynahana waxa u haray 75 casho haddii waqtigu dhammaado oo madaxweynaha hadda 75 casho u hartay la kala xoog roonaan mahayo waxa lagu kala xoog roon yahay oo dastuurka lagu bedelayo waa mandate-ka marka waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo kuwajinka ay yaqaanaan ag fadhiyaba maalinta waqtigu dhammaado cididii dhowranaysaa ma jirto maanta taladu ha kugu soo noqoto nin baa yidhi baa la yidhi maalintaan tala ma hayn maantoo aan tala hayana tabar ma hayo madaxweynuhu inta madaxweyne lagu leeyahay oo 15 May aan la gaarin caqliga ku soo laabo dadka Soomaaliyeed waxa ay lahaayeen u nabadgeli wixii lagu dhiibtana sidii loogu dhiibto ku soo celi oo xoog kuma adigana xaafida ku timid